kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada galka wararka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah agaasimiyaha maamuuska madaxweyne Farmaajo oo dalka ka baxsaday kadib markii fal uu ku lug yeeshay xiriirlaaliyaha guud ee Hirshabeelle oo amray in la soo xiro Yuusuf Dabageed xiisad xoogan oo ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Somaliland oo shaacisay eedeymaha uu Coldoon u xiran yahay 55 maalin xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in dhibaato ay ku qabto dawladda Soomaaliya sidii ay ugu soo wareegi lahayd guryaha danta guud qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal galka wararka haddii aad ku cusubtay waxaad saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqa iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya balse aan ku bilaabo madaxtooyada Soomaaliya agaasimiyaha maamuuska madaxweynaha Soomaaliya Saciid Maxamed Warsame Saciid Kambale ayaa u baxsaday dalka Turkiga sida ilwareedyo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen warbaahinta Saciid Kambale oo dhanka hooyada ay ehel ka yihiin madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu ka hor inta uusan baxsan maxkamadda loogu yeeray kadib markii uu ku lug yeeshay muran ku saabsan guri ku yaala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo la isku qabsaday isagoo garab siiyay dad ay isku ehel yihiin maxkamadda gobolka Banaadir ayaa markii gurigan la isku qabsaday waxay u xukumisay dad aan ahayn kuwii uu Kambale garabka siinayay ee ku beesha ahaa hayeeshee Saciid Kambale ayaa ku qancin xukunkaas wuxuuna bilaabay inuu adeegsado awood sida aan xogta ku helnay Saciid Kambale ayaa wixii markaasi ka dambeeyay adeegsaday awoodda ciidanka ilaalada madaxtooyada kadibna weeraray guriga maxkamadda ay xukumisay talaabada markii uu qaaday Saciid Kambale ayaa waxa ka dhashay isku dhacyo dhexmaray ciidamada booliiska oo faragelinaya arrintaasi kana jawaabay go'aankii maxkamadda iyo ciidamada uu watay Saciid Kambale ciidamada booliiska oo ahaa ilaa 18 askari lagana awood roonaaday ayaa goobta hubka lagu dhigay loona gudbiyay xabsiga madaxtooyada taliska booliiska gobolka Banaadir ayaa aad uga carooday falka Saciid Kambale waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ay geeyeen dacwad ka dhan sida ay wararka sheegayaan xiriirlaaliyaha ayaa markaasi kadib warqad u qoray agaasimaha madaxtooyada kuna wargelisay in dacwad ka taalo agaasimaha maamuuska madaxtooyada lana doonayo inuu maxkamadda hor yimaado 12 bishan oo maanta ku begneed si kastaba Saciid Kambale oo sida la sheegay dareemay kiiskan inuu aad u weyn yahay iyo qaladkii uu galay ayaa dalka ka baxsaday wuxuu maalin ka hor ka dhoofay magaalada Muqdisho isagoo aaday dalka Turkiga madaxtooyada ayaa la sheegay inay nasaqday kaarkiisa aqoonsiga madaxtooyada isla markaana amartay in la soo celiyo gaadiid uu haystay oo laga lahaa madaxtooyada Soomaaliya si kastaba madaxtooyada kama codsan dawladda Turkiga in Saciid Kambale loo soo gacan geliyo war qoraal oo ka soo baxay Hirshabeelle ayaa lagu amray in si degdeg ah loo xiro gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Dabageed warqadda lagu soo xirayo mas'uulkan ayaa waxay ka soo baxday xafiiska xiriirlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamuud Gacal Dabageed ayaa lagu eedeeyay dambiyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xadgudubyo awoodeed oogida dagaal sokeeyo iyo kuwa kale go'aanka lagu soo xiray gudoomiye Dabageed ayaa ku soo aadaya xilli maanta ciidamada taabacsan isaga iyo kuwa Hirshabeelle ay ku dagaalameen duleedka degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xiisada dagaalkan oo weli ka taagan Kalabeer ayaa waxa ku dhintay taliyihii qaybta booliiska gobolkaasi gaashaanle dhexe Maxamed Macow sidoo kale waxa ku dhaawacmay saraakiil iyo askar kale oo ka tirsanaa labada dhinac xaaladda ayaa haatan kacsan waxaana weli soo fariya dhinacyada dagaalamay oo kala ah booliis iyo nabad sugid wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa la sheegayaa in halkaasi caawa ay ka taagan tahay xiisad xoogan oo u dhaxaysa ciidamo kala taabacsan gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Dabageed iyo ciidamada booliiska ee maamulka Hirshabeelle magaalada ayaa guud ahaan ganacsigeeda uu noqday mid xiran kadib markii ciidamo fara badan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay gudaha u soo galeen xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u soo bandhigtay eedeymaha uu wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon u xiran yahay 55 maalmood xiriirlaalinta guud ee Somaliland ayaa waxay si rasmi ah u soo bandhigtay eedeymaha lagu haysto wariye Coldoon warqad lagu cadeynayo eedeymaha lagu haysto wariyaha ee ka soo baxday xafiiska xiriirlaaliyaha ayaa waxa lagu sheegay in wariye Coldoon loo haysto kiisas ay ka mid yihiin ku xadgudubka go'aansiyada Somaliland wariye Coldoon ayaa sidoo kale waxa lagu eedeeyay inuu ceebeen kula kacay dugsiga Abaarso iyo mas'uuliyiintiisa iyadoo xusud ay mudan tahay in warqadda xiriirlaalinta lagu soo xusay eedeyntan 2 jeer Coldoon ayaa sidoo kale waxa lagu soo eedeeyay inuu dacayado ka baahiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasi oo ku sheegay taliska Muuse Biixi
waa taliskii Cabdiile oo soo koraya. Xeer ilaalinta gobolka Maroodijeex ayaa ugu dambeyntii warqadan ka codsatay in maxkamadda gobolka ay u mudeyso waqtiga rasmiga ah ee la qaadayo dacwadda Coldoon. Kulan maanta ay wada qaateen madaxda maamulka gobolka Banaadir iyo qaar ka tirsan wasiirada xukuumadda Soomaaliya isla markaana looga hadlayay dejinta qorshaha 5 sano ee soo socota ee lagu maamulayo gobolka Banaadir. Kulanka ay wada qaateen wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa diiradda lagu saaray sidii qorshe loogu sameyn lahaa caasimadda 5 sano ee soo socota. Wasiir Dowlaha Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Xaamud oo ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay in dadka ku nool magaalada Muqdisho aysan diiwaan gashaneen sidaasina aan lagu soo karin amniga caasimadda. Sidoo kale wasiir Dowlaha Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhibaato ku qabto sidii ay ugu wareegi lahayd guryaha danta guud oo ay jiraan shakhsiyaad uu sheegay inay awood ku haystaan isagoo sheegay in dowladda lagu baahan yahay in ay arintaasi wax ka qabato. waxa uu yiri qorshaha horumarinta gobolka Banaadir waxa mid ah muddo soo wadnay sida warbixinta la isku siiyay ee ka kooban 6 qodob oo runtii aan aragnay inay muhiim u tahay horumarka caasimadda gobolka Banaadir ka mid yihiin arrimaha amniga, arrimaha siyaasadda loo dhan yahay, arrimaha horumarinta dhaqaalaha, arrimaha bulshada, arrimaha dib u dhiska hay'adaha dawliga ee gobolka Banaadir iyo tan lixaad oo ah arrimaha biyaha ama environment. Marka laga soo tago qodobada shirkan looga hadlay shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa wajahaya culays kaga imaanaya xilligan xirnaashaha wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka caasimadda. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya daawadayaal warkii aad ka daawanaysaan galka wararka intaan warkan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.